Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dad sharafta leh, halkan waxaan rabaa inaan casharkii aan hore usoo qaadano duuban idinkula wadaago. casharkaasoo runtii aan qaadanay taariikhda markay 29 bishii 10aad sanada 2022 kaasoo aan kusoo gaarnay Excelka iyo qaybihiisa ugu muhiimsan ee formulooyinka ah. meeshan hadda idin muuqata buuggan idin muuqda waa mashiidkan idin muuqda waa formulooyinka ugu muhiimsan markaan sharaxnay halkii inoo mareysay sida caadiga ah. Excelka saan ku sharaxnay kasokow ahaan inuu yahay spreadsheet program kaasoo loo isticmaalo wax lagu kaydiyo waxa la yiraahdo wax lagu organize gareeyo wax lagu banaad gareeyo sidoo kale uu qabto daatooyinka oo lagu store gareyn kara. sidoo kale waxaan sharaxnay waxa weeye si loo soo kiciyo oo markaad joogto waxa la yiraahdo Windowska taasoo dhan halkaan aad ku dhufanayso meesha calaamadan markaa ku dhufanayso aad ku qorayso waxa la yiraahdo run markaa ku qortid aad saas kale ku soo kacda ku qorayso waxa la yiraahdo Excel markaas ku qortid automatically ku soo kacaya Excel ku soo kacaya dan waxa la yiraahdo markuu ku soo kaco Excel waaragta waa buugiyo faaruq ah waa ku soo kacay. waxaan sharaxnay qaybahan ee ka kooban tahay waxa la yiraahdo Excelka oo ay kamid yihiin ribboniski ay kamid yihiin formula barki nameboxki columnska waxyaalo kala garto. waxaan sharaxnay hadda columnka iyo duran waa columnka A E waa ii duran waxa loo kala garanayaa waa magaca sidoo kale row waxa loo kala garanayaa waa sheegno waa xuruufta caadiga ah ilaa iyo intii aad doontid kow laba ilaa intii aad doontid. halkan waan sheegnay oo meesha hadda ii saaranta fargeeska waa cell binary sidoo kale halkan hadda ii dooran ii highlight gareysan waa row binary sidoo kale waan ku soo celinay halkan waxa weeye columnka lagu gartaa waa waxa weeye inuu yahay xaraf waxaan ka wadaa inuu yahay alphabetical waa loo kala gartaa. halkan waan sheegnay fx meesha ku qoranta formula bar oo meesha aad ka bedeleysay formulooyinka waa aad ka change gareynaysid ka edit gareynaysid waan sheegnay. nameboxka wuxuu soo saarayaa meesha hadda aad joogtid haddana waxaan joogaa columnka C waxaan ka joogaa row 1 oo ii soo saara hadda meeshaan tago halkaan kala aan tago wuxuu leeyahay columnka waxaa joogta E row waxaa ka joogtaa 7. intaa waa recap yar. sidoo kale waan sheegnay waxyaalaha ay kala duwan yihiin nameboxka wuxuu display gareeyaa waxa la yiraahdo locationka iyo waxa la yiraahdo selectorka hadda waa select gareeyay ku sheegaya halkaan hadda joogto ku leeyahay columnka noocaas ah waxa ka jirta row la saarad column G row saarad. sidoo kale waxaan sheegnay waxa la yiraahdo sheets Excelka markaad soo kicisid caadiga ah wuxuu ku soo saarayaa waxa la yiraahdo sheets. halkaan waa sheet 1 marka rabtid inaad ku darto sheet kale halkaan ku dhufanaysaa hadda rabtid mid kale ku darto halkaan ilaa intaad sidoo kale waxaan soo sheegnay waxa la yiraahdo Excelka gabi ahaanba hadda meesha maxaa ka muuqdo work markaan soo qaadanay halkaan wax ku qornay document 1 Excelka waxa la yiraahdaa Excel book buu leeyahay markuu ka kooban yahay sheetyo kala duwan waa Excel book dhameystiran weeye. sidoo kale hadda sheetkan markaan ku darsado magac waan u bixin karaa waxaan leeyahay sheetkan waa waxa weeye for example waxaan dhihi karaa formulas waxaan dhihi karaa ama FR oo kala dhigan karaa halkaas kale ku qori karaa kan wax kale aan ku qori karaa hadhow mid guud baan sameyn karaa oo aan ku soo dejin karaa waxa la yiraahdo kan oo kale aan sameyn karaa waxaan dhihi karaa waa student grades oo kale aan dhihi karaa students grades oo kale dhihi karaa halkaas marka waxaan doono maar ku qoran karaa right click baan oran karaa right click marka edit gareynay right click baan ku dhufanaya marka ii doormato cadaan ina ku taa right click dhahaya rename baan dhahaya halkaas aan ku qoran karaa ama waxaan dhihi karaa double click baan dhahaya oo saasaan u bedeli karaa markii ii fuusha highlightkan. waxaan kala sameyn karaa inta dul tago oo right click inta dul tago ka soo laad dul tago waxaan leeyahay caadi marka anoo aan rename waxaan dhihi karaa tab color markaasaan color u yeeli karaa hadda fiir jaalan ka dhigay haddaan kan waxa uu arkaysaa jaalan ka dhigay hadda tan oo kale dul tago kala right click baan dhihi karaa waxaan leeyahay waxa la yiraahdo waxa dhigta waxa la yiraahdo cagaar oo kale then markaan ka tago haddana ma student grades oo kale ii tag waxaan ka dhigay waxa dhigta waxa la yiraahdo blue oo kale markaan ka tago saas marka wax ku noqonayaan color qurux badan baa u yeelay shid walba waxa ku aqoonsiyo color ah baad u yeelaysaa sida caadigeeda markaan waxa weeye documentigan cusub sameynay oo aan waxyaalaha anagoo u baahana ku darsanay kuwa ma ribboniski caadiga ahaa intaan saddexdan wuxuu kala socdaa intii caadiga ahayd documentiga kamid ahaayeen work oo kale wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo formulas wuxuu kaloo leeyahay wixii formula xagaan ku jiraan wuxuu leeyahay wax kale data sidoo kale reviewgi iyo view waxa soo dhan
viewga iyo reviewga dabcan worka wuu kala mid halkan fileka way wada isticmaalaan kulligooda dhan office-ka oo dhan filekaas waa wada leeyahay hadda excelka oo kale markaa save garanaysa save as baa leedahay meesha rabtaad geysanaysaa markaa save tiraadaysan hore usoo baranay waxa weeye saveka wixii markaa soo kordhay oo aad qoranaysay buu waxa weeye baa save garanaysa control s baa dhihi kartaa ama waxaan leedahay safetan safetan caadiga oo control s lamid ah halkan waxaa idinka muuqda control s ama hadda kan ima save garaysna waxaa weeye maxay ahayd waa save garaysanaya markaan save garaysanaya waxaan leeyahay save as markaan waxaan tegayaa waxa weeye meeshii aniga aan waxa weeye ku samaysanayo kalaan dhahayaa desktop baan dhahayaa desktop markaan folder baan u samaysanaya aan ku garto waxaan leeyahay student folder baan leeyahay folder folderkii waa inaan sii dhex galaa halkan waa aragta obin baa ku qoran obin waa inaan sii dhahaa kadib save intaan oran waa inaan magaca ka bedelaa aan dhahaa student anaa wax la yidhaha sorry computer too fast waxaan leeyahay waxa la yidhaha student folder markaan dhex tago magaca waa inaan u bedelaa aan dhahaa wax la yidhaha student excel book magacaan waa magac aan hadhow bedeli karno waxa la yidhahda aan bedeli karno hadhow dan hadda waan sameynay renameka waan sameynay magacii hadda waan yeelnay taabkii kalara aan ku garan karnaa sameynay waxa la yidhahdo kuwan waan sharaxnay dan waxaan u baahnaa cashirka inaan gudaha galno oo si toosa u galno waxa la yidhahdo halkaa markayna joogto waxa weeye si toos aan u galno waxa weye sidii banaanba markaan rabno inaan fahno waxa la yidhahdo formulooyinka caadiga ah oo normalka ah waxay ka kooban yihiin 4 formulo waxaa jira formulo la yidhahdo addition waxaa la yidhahdo formula la yidhahdo addition waxaa kaloo la yidhahdo maxay waxaa jira wax la yidhahdo oo kale formula la yidhahdo waxaa jirta wax la yidhahdo subtraction sidoo kale waxaa jirta formula la yidhahdo division sidoo kale waxaa jirta formula la yidhahdo multiplication saan oo kale markuu kaa noqdo excelka maadaama uu ka kooban yahay asagoo dhanba rowyo iyo column isku dhex jira macnaheedu wuxuu yahay qoraalkaagii waa dheeraaday halkaana double click leedahay calaamadan kusoo baxa blast oo kale ama waa jiidi kartaa ama waxa weye calaamadan waa double click asaa ku saxaya double clickta kuu fiican wuxuu kuu geynay cabir kuu fiican marka tan macnaheedu waxa weye aan ka dhignay ama aan kusoo qaadanay waxa la yidhahdo magaca halkan waxay noqonaysaa formula name kaasaa ku qoraysaa waxa la yidhahdo maxay ahayd formula nameka description formula description fartaan waxaa weeye gaarsiinaya maadaama uu sizekii loogu talagalay aan dhaafaysa defaultka ahaa addition halkan waxaan ku qoranaa waxa la yidhahdo symbol si aan waxa weeye oo ugu garana symbolska ama signka calaamada caadiga ah oo excel ku fahmi karo markaan generate garaynayna waxa la yidhahdo formulooyinka kadib waxaan qoraynaa waxa la yidhahdo so signki waa kana tan signka qaadanayso waa plus caadiya tan signka qaadanayso marka waa inaan comma ka dhex plus caadiya weye tan waxa weye signka qaadanayso waxa weye subtraction ka soconaya oo waa ka jira caadiya tan signka qaadanayso waxa weye division saasay u qorantaa waa ka soconaya tan signka qaadanayso maadaama ku dhufatahay waa times ama xidig ama star saas bay formulooyinka afarta ugu muhiimsan u kala baxaan waxayna ka bilaabaysaa mid walba equal markaan waxaan weeran garaynayna marka hadda waxaan rabnaa inaan mid walba tusaale kasoo qaadana hadda additionka oo kale halkan table baan soo sameysanay waxaan rabaa inaan tablekiisa koobiyeeyo tablekii waa kana mid walba wuxuu ka kooban yahay waxa la yidhaahdo wixii aan gelinay iyo sida practicalkan u gelinay hadda addition
waxaan rabnaa marka inaan ka shaqeyno. Markaan ka shaqeyno mar walba waxaa ka horumaraya formula walba oo equal markaan dhaha maadaama addition tahay waxaan leeyahay waxaan raadinayaa marka hore column-kay xogta ku jirta waa I waxaan leeyahay I column waxay rowgay oo jirta IT oo jirta automatic ah highlight garanaysa ujeedaan. kadib waxaan leeyahay plus markaan dhaha waxaan dooranaa column-ka kale oo ku xiga waa J2 waxaan ka wadaa J3 saa automatic aadina mid walba markuu doorto wuxuu siinayaa color gaar ah. waxaad samayn kartaa inta waxaa soo ka tagtid equal markaad tiraahdo waxaad samayn kartaa waxa la yiraahdo oo highlight garan kartaa direct halkan waxa ka muuqato waxa la yiraahdo maxay ahayd column-ka waxa weeye column-ka I rowga afraad ilaa calaamadan Excel-ka dad ku aragtaan waa ii soo qoraya tan calaamadan macnaheedu waxa weeye ilaa inta u dhaxaysa kulli macala jumla ahaan macnaha ilaa intaas laga gaaraysaan iga yaro kala way. anaga waxaan rabnaa marka inaan barano tusaale ahaan simple way oo ah god walba ama cell walba wixii ku jira inuu isku kala daro. marka waxaan leenahay equal sum baan leenahay isku dar markaan dhahno waxaan leenahay waxa la yiraahdo markaan dhahno waxaan leenahay caadi isku kala dartid baan rabaa oo si caadi ah ama santa waa iska saaraya. waxaan awoodaa in caadi sida caadi qori equal aan dhaho column-ka magaciisa waan sheegaba I3 I4 lagu daray darta caadiga waa kana lagu daray J4 lagu daray waxa la yiraahdo lagu daray column-ka ku xigo 4 ah lagu daray L4 kadib waxaan leeyahay waxa la inta markaan qoro kadib waxaan leeyahay enter baan leeyahay automatic ahaan waa isku kaydara markaasi igu fiicnaato waa inaan hagaajista halkaan aan ku qoraa waxa la yiraahdo totalkan caadi ugu qoraa yes dan totalkii waan haystaa waa highlight gareynaya. markaan highlight gareeyo halkaan aan ku dhufanayaa waan xaggaas border baan ka dhiganayaa fiidiisaas oo qurux badan waa save gareysanaya. waxaad aragtaa si loo sameeyo marka another type baa jiro qaab kale loo sameeyo waxa weeye addition-ka oo waxaan oran karnaa inta table-keeni soo koobiyeysan oo halkaan dhigano waxaan oran karnaa halkaan total ku qorano oo farsamo kale loo eega ah. halkaan waxaan leeyahay waxa la yiraahdo waxaan sameeyaa waxa la yiraahdo intaan markaan rabno isku daro tan oo kale hadda waxa xog baan gashanayaa. markaan waxaan leeyahay equal baan leeyahay equal markaan dhaho waxaan leeyahay column-ka koowaad oo ku jira meeshaan waa o wuxuu kaga jiraa 4 waxaan leeyahay calaamadan taani laga gaarayo ilaa column-ka ugu dambeeyo R ah R4 laga gaarayo waxaan leeyahay isku kaydar baan leeyahay. marka saas u saaraya marka waan aragnay halkaan waxaan tagayaa waxa la yiraahdo subtraction-kii baan tagayaa waxaan leeyahay waxa la yiraahdo waxaan soo qaadanayaa totalka mid meel walba dhiganayaa si igu fududaato hadhow ka shaqeyntiisa. so halkaan aan joogaa marka waxaan rabaa markaan fiiriyo waxa la yiraahdo subtraction kala jar si aan u kala jaro waxa la yiraahdo kan xog baan gashanayaa bannaan waxaan leeyahay waxa la yiraahdo equal markaan dhaho waxaan sameynayaa waxaan sheegayaa column koowaad I4 sorry waxaan column-ka koowaad oo I rowga ku jira waa rowgan I8 waxaan leeyahay I8 laga jaray waan leeyahay calaamadan hoose u isticmaalay midda dhaxan isticmaalaya oo ka jiritaanka caadiga lagu daray 87 waxa ka wada 87 laga jaray haddana laga sii jiray 88 haddana laga sii jiray waxa la yiraahdo 57. so markaan hadda rabo inaan sameeyo waxa la yiraahdo subtraction wax walba sign bay leedahay. sign-tan qaadanayo waxa weeye ama symbol-kan qaadanayo ama sign-tan qaadanayo waxay noqonaysaa ama calaamadan qaadanayo markaan joogo subtraction-ka calaamadda aan qaadanayo waxay noqonaysaa calaamadan iin soo sawiraya shaashadda markaas aan rabo inay ii soo baxaan waxaan qorayaa waxa la yiraahdo equal la-aan kuma shaqeynayo formulooyinka Excel-ka oo dhan. equal markaan dhaho waxaan dooranayaa column-kii ku jirto oo 8 bay column-kii ku jirtaan raadinayaa waa I8 bikaysta rowga 8 haddana waxaa ku xigay waxaan leeyahay waxa la yiraahdo ka jar J8 haddana sidoo kale waxaa ka jirta waxa la yiraahdo K8 haddana waxaa ka jirta waxa la yiraahdo L8 kadib waxaan leeyahay totalkiisa enter baan leeyahay kadib minus buu isaar because hadda calculator ahaan haddii aan u qorno ama adiga u calculate gareysatid wuxuu ku saarayaa xisaabtan halkaan ku qor oo macnaheedu uu yahay
sideetan iyo sagaal marka laga jaro sideetan iyo todobo haddana laga sii jaro sideetan iyo sideed haddana laga sii jaro konton iyo lix macnaheed muxuu boqol afartan iyo labo oo minus ah. Okay, waxaan rabnaa marka hadda inaan fiirino waxa la yidhahda kan xoogashta. hadda waxaan fiirinaa waxa la yidhahda multiplication soo shaqeeya sida caadiga ah equal baan dhahayaa. equal markaan dhaha waxaan dooranayaa column-kii, haddana waxaan kasii dooranayaa waxa la yidhahda row-gi uu ku jiro. row-gan uu ku jiro waxa weeye waa row-gii 12aad. marka waxaan leeyahay equal, waxaan leeyahay I 12 markaan dhaha waxaan leeyahay lagu dhuftay calaamadii caadiga ahayd baan ku dhufanayaa, caadiga u isticmaalaya caadiga ahayd. kadib waxaan leeyahay waxaa ku dhufataa waxa la yidhahda J 12, haddana waxaan leeyahay waxaa kusii dhufataa K 12, haddana waxaan leeyahay waxaa kusii dhufataa L 12. kadib waxaan leeyahay ii sheeg totalka. so markaan joogo ku dhufashada caadiga ah signteedin aan isticmaalo calaamadeeda waxaan leeyahay equal. kadib waxaan raadinayaa rowga column-ka marka hore uu ku jiro. column-kan waa I, kadib rowga ugu jiro waa 12. kadib waxaan leeyahay I markaan waxaan leeyahay waxaa aada rowga 12aad waxaad ku dhufataa haddana waxaa weeye J 12 waxaad ku dhufataa calaamadeeda sii qoraya waxa la yidhahda K 12 waxaad ku dhufataa waan leeyahay L 12. kadib waxaad ku dhufataa ku dhufashada waa inaa caddeeyaa dhufataa waxaan leeyahay ku dhufataa L 12. kadib waxaan leeyahay ii sheeg totalka yusaar waa kana. calculator baad qaadan kartaa, waad hubinaysaa marka aad u baahan tahay. hadda waxaan soo fahanay si loo sameeyo additionka, sidoo kale subtractionka ama ka jirta, sidoo kale waxaan eegnay waxa la multiplicationka ama isku dhufashada. taasi way caddaa oo clear. alright, halkaan geey marka waxaan tegaynaa waxa la yidhahda division. sida divisionka loo sameeyo oo ama isku qaybinta loo sameeyo baan tegaynaa. sida caadiga ahayd ayadana waxaan raacaynaa waxa la yidhahdo equal baan leenahay. kadib waxaan raadinaynaa column-ka ku jira. column-ka waxa weeye I wuxuu ka sii yahay rowga 16aad. 16 markaan dhahno waxa la yidhahdo waxaan leeyahay loo qaybiyey calaamadii waatana divisionka ahayd. column-ka kale waa J 12 waxaan ka wadaa J 16 loo qaybiyey waxa la yidhahdo K 16 loo qaybiyey L 16. kadib waxaan leeyahay inter baan leeyahay error baa yimid. halkaan waa inaan geliyaa xisaab, marka xisaablaan kuma saari because waxaa ka maqan selkan wuxuu ka maqan. haddaan ka taari wuxuu kuleeyahay sorry divisionka waa qalday, marka waa inaan aan geliyaa xisaab kaas ku saaraya. marka formulooyinkana marka way noo saxsan yihiin oo ujeedaan kulli way noo saxsan. waxaa noogu xiga marka baartiga labada casharka aan qaadana waxay ahayd inaan qaadana ay ahayd oo runtii waqtigu noo saamixi waaye. waxay ahayd waxa la yidhahda inaan grade of student sida buugga idinku qoran inaan waxa weeye aan sameyno grade of students, inaan waxa weeye aan sameyno waxa la yidhahdo inaan arday u sameyno grade. so ardayga grade markaad inaad u sameyso waxaad u baahan tahay marka koowaad waxa weeye inaa heshid waxa la yidhahdo magaca ardayga, maadooyinka aragti grade inaad u sameysid baad u baahan tahay inaa heshid marka koowaad. marka labaadna waxay noqonaysaa inaad markiskii heshid uu ardayga keenay. marka saddexaadna waxay noqonaysaa inaad marka shaqo bilowdid oo aad mid walba mid uu ka helay aad u sameysid. halkaan marka waxaan sameysanay sheet gaar ah. sheetkaas oo aan ugu talagalnay inaan kusoo bandhigno arday gradekiisa. arday magaciisa waan helnay waxaa la yidhahdaa liibaan baa la yidhahdaa. maadadoo dhiganayana waa computer application. waan soo gaabsana computerka application course buu dhiganayaa. then waxaan leenahay waxa la yidhahda maadada koowaad taas weeye. wuxuu kaloo dhiganayaa waxa la yidhahda oo uu baranayaa maadooyinkan computerka la xiriira sida Java. sidoo kale wuxuu baranayaa waxa la yidhahda maadooyinka computerka la xiriira oo web designing-ka. sidoo kale wuxuu baranayaa waxa la yidhahda computer software engineerska. soo gaabsanaya. okay, intaa markay tahay table-kii aan xoogaa yar sharaxaynaa. halkaan aan tegaynaa, meeshaan aan ku dhufanaynaa, border garanaynaa, then waxaan qoraynaa markiska uu helay. waxaan leenahay ardaygan liibaan la yidhahdo computer application course wuxuu ka helay. marka hore aan muujiyo, aan ka dhigo boldly, barta hawaa aan weyneeyo si uu waxa weeye
qurux banaato aan ka shaqeynayo. waxaan leenahay maadada wuxuu ka helay waxa la yiraahdo 87 ka helay oo aad ugu fiicnaa. Java oo kale wuxuu ka helay waxaan leenahay 73. sidoo kale web design ka wuxuu ka helay normal 67. software engineer ka waxaan leenahay ardayga iska normal buu ahaa 59 buu keenay. tan halkaan waxaan ka rabaa markii aan sameyno marka koowaad inaan helno waxa la yiraahdo total. marka waxaan sameysanaa column totalka ah. total baan leenahay. totalka markaan sameyno waxaan leenahay column kale waxaan sameynaa la yiraahdo waxaan leenahay column kale oo la yiraahdo waxaan sameynaa waxa la yiraahdo statuska ama waxaan sameynaa marka hore waxaan ku marnaa horumarina grade ka ardayga uu helay kadib waxaan ku darinaa waxa la yiraahdo statuska macnaheedu iyo ardayga ama baasay mise ama baasin. okay totalki waan haysanaa grade-kiina waan haysanaa kaliya xoogaa hagaajino isla keesina table-kay noqonaysaa. halkaan waxaan ku qoranaa marka totalka ardayga total marka la qorayo maxaa loo baahan yahay shaashada idin kusoo qoraya ama halkaan aan kugu qoray totalka marka la qorayo waxaa loo baahan yahay waxa la yiraahdo sheeg addition baa loo baahan yahay ama kudar baa loo baahan yahay maada kudar weeye. okay halkaan waxaa weeye sida caadiga baan qoranaa equal baan leenahay equal markaan dhan waxaan leenahay waxaa tagtaa maxay ahayd waxaa column-ka koowaad oo ku jira maadada ugu horeysa waa maxay h wuxuu kaga sii jiraa 6. waxaan leenahay h6 lagu daray baan oran karnaa. sidoo kale i6 baan leenahay waxa la yiraahdo lagu daray baan leenahay waxa la yiraahdo j6 waxaan leenahay lagu daray waxa la yiraahdo k6. markaas waxaan leenahay enter marka isku kaydare. marka saa u hubisid mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaad tiraadiniyo ama ka khaldan tahay waayo isku hubisid waxaa sameyn kartaa waxaad isku daragareyn kartaa inaad talooda aad u soo jeedid ma inta dul tagtid meesha ka bilaabaysid xisaabta ilaa meesha ku dhamaanaysa mouse ku soo daragareyn kartaa. halkaan hoos wuxuu ka saaray xisaabta caadiga sum meesha qoranta kadib hadda hoos waxaa ku hartaa 286. halkaan 286 totalka waan haysanaa. marka halka arday waan sameynaa waxaan ku dareynaa gabar ama ardayd gabar ah waxaan leenahay ardayda waxaa la yiraahdaa farxiyo la say. halkaan waxaan ku qoraynaa waxa la yiraahdaa 99 marks ka 99 bay keentay gabar aad ugu fiican bay ahayd xagga computer-ka aan leenahay for example oo kale. kadib waxaan leenahay halkaan oo kale Java oo kale waxay keentay waxaan leenahay 71. halkaan oo kale waxay keentay 81. halkaan oo kale waxay keentay waxaan leenahay 69 68 oo kale. tan waxaan rabnaa inaan isku darno marka laba option baan noo furay in aan isku darno inaan drag and drop sameyno. mar haddaan sameysano isku darki koowaad waxaan sameynaa waxa ku soo jeedinaa bas caadi waa ku soo jeedaysaa meesha falaarta marka dul tagtid tartiib baa ku soo jeedaysaa isaga markaas automatic ahaan isku daraya waka saa qaayada ku sameynaa fiirada marka meesha dul tagtid ku sheegay wuxuu ku leeyahay h7 waa ka h7 xagana qorantahay tan magaciisa waxaan rabaa inaan aan leeyahay magaca kore hadda saasay shaxda u qorantahay waxaan leeyahay save in case wax kasta dhacaan. وهاك halkaan markaan soo gaarnay hadda waxaan average soo saarno oo average soo saarno waxaan leenahay equal baan dhahay equal markaan waxaan dooranayaa waxa la yiraahdaa formula barkaan tagaya waxaan qorayaa formulada aan rabo average baan rabaa automatic aan buu saarayaa double click baan leeyahay kadib waxaan rabaa inaan waxaan average kooda raadiyo average ka inaan raadiyo waxaan rabaa inaan ogaado columns-ka ku jiraan iyo waxa la yiraahdaa rows-ka ku jiraan numberada magacyadooda iyo numberkooda waxaan leeyahay column-ka ugu horeeya waxa weeye h6 rowga lixaad buu 6 ku yahay ilaa laga gaaray waxaan leeyahay row ugu dambeeya oo k6 waxa la raadinaya average kooda total ku qadaray waa total gaar baan soo sameystay markaas waxaan leeyahay rowgaas macnihiisu waxa la yiraahdaa magaciisa waxa la yiraahdaa k6 markaas waxaan soo xiriyaa qoyska interval leeyahay average ku haysta waa soo qaybin kartaa automatic ahaan waxaa leedahay 286 loo qaybiyo afar maado marka saas ku helaysaa average ka adiga dan waa soo jeediyaa qofka dambaan keensanaya ilaa aan ka helay dad average ka ardayda waan helay marka waxaan rabaa inaan raadiyo grade ku marka it's very simple haddii aad intaas ba haysatid waa qaacida wax la isticmaalo if marka equal baa leedahay if baa leedahay qoys baa furaysaa kadib waxaad bilaabaysaa inaad wax ku sheegto excel-ka tiraahdo aniga celiska marka hore iyo celiska waxaa ugu jira column-ka m rowgiisa lixaad waxaa leedahay m 6 automatically celisku aadaya waxaan leenahay haddii uu ka weyn yahay ama la mid yahay hadduu ka weyn yahay ama la mid yahay
waxaad ii samaysaa waxa weeye la mid yahay ama ka weyn yahay muxuu ka weyn yahay la mid yahay xisaabta 95 hadduu ka weyn yahay ama la mid yahay 95 buundo waxaa ii siisaa qofkaas coma waa leedahay qofkaas waxaa ii siisaa waxaa leedahay waa soo kadib waxaa leedahay markaad saa ay ii sii tiraahdo coma leedahay haddana waa sii soconaysaa intaas hadda automatic wuxuu fahmay qofka 95 hadduu gaara ama la mid yahay 95 waxa weeye wuu siinayaa automatic buu siinayaa waxaa kaloo leedahay marka waxaa inaad qortaa gararkii labaad ama kii saddexaad waxaa leedahay haddana sidoo kale ayada bilaabaysa if baa leedahay qoyska waa furanaysaa sidoo kale waxaa leedahay columnka soo jeesa m iyo rowga m6 baa leedahay hadduu greater or equal to uu la mid yahay muxuu la mid yahay waa inaa sheegtaa buundada qoraysa waxaa leedahay let's say 85 85 hadduu waxa weeye uu la mid yahay waxaad siinaysaa 85 hadduu la mid yahay let's say 85 kadib waxaad leedahay coma waa leedahay qofkaas muxuu qaadanayaa p uu qaadanayaa waa leedahay then comada kusoo xiraysaa kadib waxaan sameynaa graderkii ku xigay waxaan leenahay if maan leenahay qoys baa furaysaa markaas waxaan leedahay waxaad aadaa columnka celceliska oo averageka m weye 6 buu kasii yahay hadduu la mid yahay greater or equal to uu yahay la mid yahay ama ka weyn ama la mid yahay wuxuu la mid yahay marka waa inaa buundooyinkii sheegtaa waxaan leenahay let's say 75 maxaa marka sameynaysaa qofka coma waa leedahay qofka waxaa siinaysaa waxa la yihahda c baa siinaysaa kadib waa soo xiraysaa marka intaa kusoo xiri lahayd marka waa inaa xisaabisaa inta qoysaa furtay marka qoys baa kusoo xiraysaa inta qoysaa furtay waa inaa xisaabisaa marka imisa qoys baa furnay 1 2 3 waa inaa 3 kusoo xirnaa marka 1 2 3 waa inaa dhahnaa marka inter waa inaa dhahnaa halkaa marka maxaa kuu soo baxay false information baa kusoo baxday okay kusoo jiid marka c okay false information meesha waxay kusoo baxday waxa weeye qofkan celceliskiisa waa 75.5 so annaga waxaan gelinaa qofka 95 inuu ka badin let's maadada aan kordhino marka halkaas aan ku daro maadooyinka aan badino bundada maadooyinka aan badino marka halka maxaa kusoo baxday aan yara tuso let's say aan idin tuso marka halka waxaa kusoo baxay waxa la yiraahdo maxay waxaa kusoo baxay markskii let's say halkan false uu leeyahay haddii marka maad bundooyinkan aan wax ka dhimo karo okay let's say bundadan oo kale aan siino qofkan konton buu keenay maxaa dhacay marka wuxuu ku leeyahay false information because xog waxaa meeshaan ku jirta waxa la yiraahdo maxay false because maxaa dhacay waxaan niri anaga waxaan qornay 3 qaacido waxaan niri waxa weeye haddii uu la mid yahay 95 ama ka badan yahay qofka wuxuu qaadanayaa waxaan niri 85 hadduu la mid yahay ama ka badan yahay qofka wuxuu qaadanayaa waxa la yiraahdo b uu qaadanayaa waxaan niri 75 hadduu la mid yahay ama ka badan yahay qofka wuxuu qaadanayaa c intiiba maaha marka 60 doo soo jeed marka false marka bundooyinkan kordhinana halkan waxaan ka dhignaa 80 doo marka maxaa dhacaya marka c uu qaadanayaa haddaan bundooyinkan sii kordhino la sii ardaygaan waxaan ardayga aad buu dadaalay oo kale maxaa dhacaya waxa la yiraahdo 82 so still wuxuu raadinayaa 85 uu raadinayaa 85 aan ka dhignaba halka aan ka dhignayna oo kale waxaan aan ku qorno b uu keenayo haddaan maadooyinka sii kordhino aan waxa weeye aan ka sii dhigno si aan u helno waxa la yiraahdo aan u helno aan sii qorno wuxuu ku siinayaa sida caadiga uu ku siinayaa waa kaas aad aragtaan marka saasa marka loo sameeyaa formulada gradeka maxaa hadda noo haray inaan sameyno statski oo aan dhahno qofkan waa ama waa b ama waa c saasa rabnaa marka inaan sameyno hadda marka waxaan gelinaa waxa la yiraahdo statski oo macnaheedu qofka ama waa baasay ama waa dhacay inaan dhahno marka see yeelanaa marka qofka waa baasay ama waa dhacay inaan dhahno see yeelanaa marka
hadda waxaan rabnaa inaan sameyno waxa la yidhahda statuska qofkaas inaan caadi ugu qorno a b c waxaa laga yaabaa inay si caadi ardayga markuu derbiga lagu soo dejiyay inuu arko inuu baasayka ama waarisku si fudud fahmaan oo kale. marka waxaan leenahay waxaan u sharaxaynaa waxaan qoraynaa waxa la yidhaahdo si caadi ina pass ama failed si caadi u arko. waxaan leenahay waxa la yidhaahdo equal waan leenahay if baan leenahay qoyska aan furaynaa. qoyska markaan furno waxaan leenahay waxaan sheegaynaa markaan waxaan qoraynaa columnka waxaan qoraynaa columnka la yidhaahdo average-ka muxuu ahaa m6 buu ahaa 6 waxaa ka ah rowgiisa. waxaan leenahay greater or equal to sorry my computer little bit too fast. greater or equal to muxuu la mid yahay marka waaye wuxuu la mid yahay waan leenahay qofkaas hadduu la mid yahay qofka konton oo kale waxaan siinaynaa qofka inuu baas yahay inuu baasay waan leenahay. komaan leenahay haddii kale maxaa soo dhacay haddii kale qofkaas uu dhacay baan leenahay. kadib qoyskaan soo xiraynaa qoyskii waan soo xiraynaa basi waka waad aragtaan little bit aan ka dhigo wax la arki karo. okay markaan kusoo jiido formuladii oo dhan halkaan waa aragtaan waa baste. marka waxaan rabnaa inaan bal eegno formuladan pilotka inay shaqeynayso in kalo si ardaygan aan kortaga leh aan maadooyinkiisii buundooyinka uu keenay oo kale aan yarayno. kulli aan waxaan rabnaa inaan yarayno sorry halkaan fail buu soo qoray automatic ahaanbu fail buu soo qoray. marka waad aragtaan waxaan u malaynayaa inaan fahanteen si loo sameeyo gradeka aad bay u fudan tahay runtii haddii aad practice garaysaan. wixii su-aala iyo wixii weydiina waxaad kusoo qori kartaan groupkeena sidoo kale waxaad kusoo qori kartaan waad igu soo weydiin kartaan. aad baad u mahadsantiin.